هكدل هذاك عيار هكدل هذاك عيار دقاقة بدي صوديس كوبدا صوديس قويس ماذا داف دينعيا ذا فيري صاحبك وديب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أو وناكسن دابضيال هالكاد نقل السعوتين أما نقل دابون إنسان وجب التي في فضلا هديات كعصب تاي جنال كان سبسكرايب سار لايك شير كومنت منها كي لوبين. kusoo dhawaada xubintiini ciyaaraha oo aad u xiiso badan. ciyaarihii Soomaali Week oo uu soo qabanqaabiyay ururka Sombet RU ayaa la soo gabagabeeyay. ciyaarahan intii ay socdeen ayaa ahaa kuwo aad u xiiso badan. intii ay socdeen waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan. waxaa soo dhaweeyay oo aad u riyaaqay waalidiin badan oo caruurteedu u helay ciyaaro si qurux badan loo soo agaasimay. waxaana ka mid ahaa dadka goobta ka hadlay oo ku faraxsanaa sida habsamida leh ee ciyaaraha u socdeen. aabbo Soomaaliyeed ahna ciyaaryahan hore Asad Xasan waxa uuna yiri jabatiis waa maasantihiin maanta runtii aad aan u faraxsanahay maxaa yeelay waxaa noo socda ciyaartii finalka ahayd oo ay soo qabanqaabiyeen ururka Sombet. runtii aniga mid mihi laakiin waxaan dadka taageersan maadaama caruurtan ay ku ciyaarayso meesha isdhexgal fiican ka socda. runtii wax aad loogu farxo waaye waa finalkii dadku aad ugu faraxsan yihiin maanta jawi fiican aan qaadanayna ma sha Allah. jabati TV aad u maasantihiin kusoo dhawaada insha Allah. si kastaba ha noqotee garoonka ayaa ahaa mid aad u soo buuxiyeen taageerayaal badan oo labada kooxood u kala sacabtumayay. waxaa wada ciyaaray finaalka labada kooxood ee X7 iyo Zamalek, waxaana koobka tartanka ku guuleystay ay guusha ku raacday FC Zamalek oo si aad ah u soo halgantay intii ay socdeen tartamada. Jabba TV ayaa wareysi kooban la yeeshay gudoomiyaha ururka Sombet RU gudoomiye jaamac waxa uuna yiri aad u mahadsantahay walaal. waxaan halkan ka salaamayaa Jabba TV aad iyo aad u mahadsantihiin maanta booqashada aad nagu soo booqateen garoonka Muluguro oo lagu qabanayo Somali Week oo ah maalintii finalka ugu dambeysay ciyaaraha. marka sanadkan 2020 waa sanadkii ugu horeeyay aan qabano Somali Week. mustaqbalkan waxaan rajeynaynaa inaan hore aan usii wadno, aan horumarino, aan balaarino. hadda inkastoo ay macnaha 8 kooxood ay kasoo qayb galeen ciyaarihii macnaha 8 kooxood ay kasoo qayb galeen waxaana macnaha hadda maanta isugu timid 2 koox oo macnaha X7 iyo Zamalek ayaa finalka isugu timid. marka ciyaarahaas oo macnaha inoo suurto gashay inaan qabano sanadkan. ebel waxaan qaban jirnay Ramadan Cup ayaan ku bedelnay maadaama xilliga Ramadaanka uu mar walba isguraayo oo dib u dhacayo oo xilli barafka ku soo aaday. marka waxaan garanay maadaama Soomaalida ay samarka iskuuladii dhalinyarada ay u dhamaadaan oo fasaxyo la galaayo, marka maadaama fasaxyadii inaan ku soo aadin ciyaarahan si Soomaalida ay isku arkaan waa xilliga kaliya macnaha Soomaalida ay kulmaan si wanaagsan ilaa hadda ay noogu suurto gashay. ilaa hadda si macnaha aad iyo aad u qurxoon badan ay ciyaarihii noogu qabsadeen. maanta waa maalintii ugu dambeysay finalka aheeday oo macnaha kooxdii raysa beledihii ciyaartooyda ugu fiicnaa kooxdii raysa waxa dhan aan macnaha aan halkan ciyaaraha Somali Week ayaa si weyn looga soo dhaweeyay wadanka Finland, waxaana xusid mudan in wadamada Yurub, Canada iyo qaar kale laga ciyaaro weega Soomaalida, balse Finland laga bilaabay sanadkan. halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal. aad ayaan u mahadsantihiin la socodsidiina intii ay socdeen ciyaaraha. kulantin dambe oo xiiso leh, sidaas iyo nabadgelyo.